wacanoo wanaagsan dhammaan akhyaartana daawanaysa ay meel kastood joogtaanba ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii xaqiiqo raadis qodobadan kusoo qaadanayna waxaa ka mid a ciidankii nabad ilaalinta u joogay qaramada midoobay suudaan ee itoobiyaanka ahaa gaar ahaan tigreega ka soo jeeday oo dagaalka TPLF ka bilowday dhinaca suudaan kusoo biiray weerar xooggan haatan kusoo qaaday magaalada Humeera iyo dagaalkii lagu kala baxayay kiiroon uu reerka u soo hadhayay oo la sheegay inuu Humeera ka socdo iyo dagaalka ka socda guud ahaan furimaha kala duwan ee axmaarada iyo tigreega ayaynu ku qaadaa dhigi doonaa barnaamijkeena ku soo dhawaada waa hagaag aynu ku bilowna barnaamijka ee dagaalka u dhaxeeya ciidanka Itoobiya ee huwanta ah ee ay la socdaan ciidamada qowmiyadda axmaarada iyo markaasi la sheegay ciidamada Eritrea oo dhinaca ayaa hata waxa ay la dagaalamayaan xooga TPLF waxaana hadaba jirta in ay furimaha dagaalka ka socda haatan ay sii baahayaan oo markaasi ay haatan ku fidayaan dhammaan deegaanada axmaarada iyo waliba tigreega haddaba dagaalkii ugu xoogana ayaa haatan waxa uu ka socdaa magaalada istaraatiijiga ah ee Humeera magaalada Humeera oo saddex geesood ah oo waxa u dhaxaysa xadka Itoobiya Eritrea iyo Suudaan ayay ku taalaa waxaana weeyaan gobolka ay u yaqaanaan Tigreeg ay sheegtaan inay leeyihiin gobolkaasi ee galbeedka Tigreey axmaaraduna walqaayad ay u taqaano labada dhinacna ay haatan isku haystaan magaaladiisa ugu muhiimsan ee istaraatiijiga ah waa Humeera haddaba waxa uu haatan dagaalku ka socdaa labada dhinaca Suudaan oo haatan TPLF halkaasi ay weerar ka soo qaaday iyo dhinaca markaasi Tigreega oo markaa xaggan ku qaaday dagaalka galbeedka Tigreey haddaba afar qalcadood oo waaweyn ayaa uu dagaalku haatan waxa lagu dagaalamaya oo markaa aad loogu loolamaya dagaalkan haatan 4 maalmood ama 5 maalmood oo isdaba socda afarta qalcadood ee waaweyn idin sheegaya mid ka mid ah ay haatan sheeganayaan haddaba dhinaca dawladda Itoobiya in ay qabsatay waxaana aagaasi la yiraahdaa Shararima dhinaca kale ciidamada TPLF oo dagaalka sii waday ayaa lagu soo waramayaa inay la wareegeen qalcadii agagaarka Gadiima Asaasa haddaba ciidamada huwanta ah ee dawladda ayaa sheeganaya inay waqooyi galbeed Tigreey horumar dagaal ka sameeyeen inkastoo ayna sheegin goobaha ay haatan gacanta ku dhigeen ee kale haddaba dagaalkan haatan ka socda Humeera haddii aynu faahfaahintiisa sii dhex galno waxa haatan la sheegay in waxa xamaasada u yeelaya ay tahay ciidamadii Tigreega ahaa ee ka tirsanaa markaas ciidanka Itoobiya ee qaramada midoobay ka socday ee nabad ilaalinta u joogay Suudaan ayaa dagaalka ku soo biiray waxaynu ognahay Suudaan waa tii amartay sanadkii hore in dhammaan ciidamadii nabad ilaalinta u joogay Itoobiya ee Suudaan joogay inay ka baxaan laakiin Tigreegi bay yidhi matay kareen oo wada la dilayaa haddaba intii oo dhaxlay Suudaan bay ku sugnaayeen haddaba ciidamadaas oo aad u tababaran oo ciidamadii Tigreega markaas la socday qaramada midoobay ayaa haatan oo ay la socdaan markaasi qaxootigii waxa la sheegay ka yaacay iyaguna markaasi waqtigii dagaalku ka bilaabmay Tigreega ee Suudaan galay dhalinyartaha oo iyadana waxa la yidhi Suudaan tababartay waa sidii Itoobiya ay ku eedaynaysaa ayaa haatan iskaashaday dagaal xooggan oo qadhaadh ayaana haatan waxay ku soo qaadeen Humeera haatan qirinqiir bay ku jirtaa waxaana dagaalka xamaasada u yeelaya waxa weeyaan ciidamada aadka u tababaran ee ciidamada nabad ilaalinta u joogay Suudaan ayaa haatan waxa ay markaa gaar cad u xidheen in ay Humeera xoreeyaan oo sidii markaasi doonayaan ama hadalka u dhigeen dagaal xooggan ayaana waxa la sheegaya deegaanka Abdurraafi loo yaqaano ee markaasi ku yaala xadka Suudaan iyo Itoobiya in halka magaaladaasi horta ay haatan haystaan TPLF ayaa la xaqiijiyay dhinaca kale magaalada Humeera ayaa la sheegay weerar xooggan markaasi inay 3 maalmood oo la soo dhaafay oo dhan ay dagaal xooggan ka wadeen xooga TPLF iyagoo la dagaalamay baa ciidamada Eritrea iyo markaasi kuwa Itoobiya Humeera haatan haddaba waxa weeyaan barta lagu kala baxayo cidda ku guuleysata markaasi magaaladaasi Humeera ayuunbaana markaasi waxa la yidhi dhammaan furimaha kala duwan ee Itoobiya dagaaladu ay ka socdaan ee ku loolamayaan xooggan iska soo horjeeda cidda u talin doonta Itoobiya waa cidda markaasi waxa la yidhi Humeera qabsata haddaba Humeera maxay muhiim u noqotay Humeera waxay muhiim u noqotay waxa weeyaan waxa ku taala sida aan soo magacaabay iskoy saddex geesooda saddex wadan ayay kulmisaa oo markaasi saddex wadan ah Itoobiya Eritrea iyo markaasi Suudaan aan ku horeyna waxay TPLF muhiim u tahay TPLF haddii ay Humeera qabsato Suudaan bay markaasi u banaanaysaa corridorkii ama halkii ay wax u soo mari lahaayeen Tigreegan haatan la blogareeyay ee sanadkii markaasi 2 sano ku dhowdhowday blogga saaran
ama cunaqabateynta saaran ee doonaya mar inay madaxa furtaan ayaa waxa ay muhiim ku tahay marka hadday humeero qabsadaan inay suudaan markaasi wax walba cunno hub waxay ay u baahdaanba ay soo marsan karaan saa darteed way ku dhimanayaan tigreegu waxaad ogaataa wadahadaladii nabadda ee markaasi haatan fashilmay waxa fashiliyey waa humeera lagu heshiin waayey tigree iyo axmaaro humeero ayay ku heshiin waayeen oo markaasi qolo walba tiri annagaa leh xukuumadda etoobiyana ay tiri markaasi arrinkan ha loo daayo guddiga xadaynta markaasi ka shaqeeya kala xadaynta qowmiyaduhu meelaha isku haystaan tigreegina waxa uu yidhi markaasi may humeero oo nala siiyo mooyaane iyo galbeedka tigree oo nala siiyo mooyaane ma aqbalayna yidhahan wada hadalo marka waxay u tahay very important xagga tigreega xagga etoobiya iyo axmaaradana muhiim bay u tahay waxay diidan yihiin in ay markaa awood hesho TPLF oo markaasi ay dee corridor hesho ama jid ay wax u soo maraan saa darteed waxay isleeyihin hadday humeero qabsadaan way idiin dhammaatay waayo awood bay helayaan waxay helayaan meel loo soo mariyo markaasi hubka casriga ah ee lidka diyaaradaha droniska iyo markaasi hubka kale ee khatarta ee droniska laftarkooga yacni waxaas oo dhan ayay haatan markaasi jidkaasi u soo maraya waxaanad ogaataa markaa in ay very important u tahay markaa dhinaca tigreega oo ay aada ugu dhimanayaan etoobiya tay u diidan tahayba taasa aduu si kasta ha ahaatee iminka 5 ilaa 4 maalmood ee ugu dambeeyay dagaalka ugu xooggan halkaasi humeero ayuu ka socdaa waxaana uu noqonayaa markaasi dagaalka kaliya ee guusha keenaya lagu kala baxayo dhinaca kalena waxa uu noqonayaa markaa dagaalkaasi mid markaa lagu hoobto haatana dhimashadii dhaawacu waa tirabeel waxa la yiri markaasi waxa la kala aasan laayay meydkii oo la haleeli laayahay qolada moogtay tigreega iyo moogtay xagga axmaarada iyo ciidamada Itoobiya maxaabiis kala duwan baa haatan lasoo bandhigaya iyadoo markaasi furimaha kala duwan ay guul ka sheeganaysa TPLF oo kumanaan ciidanka Itoobiya ay haatan soo bandhigeen iyaga oo sheegay markaa inay yihiin maxaabiis ay ka qabteen ciidanka Itoobiya sida oo kale waxay soo bandhigeen oo arrinka yaab kale ayaa ah ciidamadii koofiyad casta ahaayee markaasi la oran jiray waa xabsi jamhuuriga waa ciidamada ilaaliya markaasi madaxtooyada ee koofiyad casta la yiraahdo dalladay ku boodaan waa kamaandoodii bay soo bandhigtay TPLF haatan iyagoo oo ay markaasi maxaabiisaan u qabteen waxaana arrinku aadka loola yaabayba ah ciidamada sida gaarka ee dallada ku booday koofiyad casti oo haatan markaasi la sheegay in ay gebi ahaantoodba markaa si koobtayba dee qabsatay TPLF oo afar dhaqaajin waayey kumanaan bay soo bandhigtay ama boqolaal koofiyad casti Republicankiya dadka qaar haddaba dhinaca ciidanka Itoobiya dowladda Itoobiya iyagu taageera waxay leeyihiin dirayskuun bay usoo xidheen maaha koofiyad casti arrinkaasina wuu jiraa laftarkiisu annagu laakiinse iyo saxaafadda kale midna ma xaqiijin karo wixii ay qolo soo bandhigtuun baynu sheegaynaa laakiin warbaahin toos halkaa joogtaa ma jirto laakiin muuqaalada ay soo bandhigayaan lays odhan karo waa run ayuunbaa dadku moogtay soo tabinayaan warbaahintu laakiin warar dee lagu kalsoon yahay iyo saxaafad jiidda hore kasoo warramaysaa ma jirto waa hagaag wixii kale kasoo kordha wayno barnaamijkeena dambe barnaamijkan intaas ugu dhageetan iyo kulantideena dambe nabadgelyo